kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya qaramada midoobay oo wada qorshihii ugu dambeeyay ee lagu difaacayo Somaliland tallaabooyin waaweyn oo loo qaado xukuumadda Ciro iyo xogaha hadda laga helayo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay durba halkaas ka bilowday mucaaradka oo la siiyay fursad weyn oo ugu dambeyn ay ku shaacin doonaan go'aankooda ka hor wada hadallada bilaaban doona toddobaadka dambe xogtii ugu dambeysay dhacdooyin waaweyn oo taagnaa oo mucaaradka hadda laga sugayo inay jawaab rasmi ah ka bixiyaan xogta sidoo kale ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheikh ee Ethiopia Kenya iyo sidoo kale Djibouti oo ugu maray maalmihii la soo dhaafay xogaha xasaasiga ee hadda laga helayo wararkii ugu dambeeyay geeska Afrika waxa ka socda sarkaal Mareykan oo sheegay in Iran iyo Mareykanku ay ku heshiiyeen in hoos loo dhigo xiisada dagaal ee bariga dhexe war la aadan ayaa sidoo kale daawan doontaan iyo xogii ugu dambeeyay balse marka hore si aan faafinta ugu galno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share garayso like saarto meel fog gaarsiin qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino adigoo rukunaya barteena YouTube channel sidoo kale furo gambaleelka digniinta aragtidana qaybta hoose faallada ama commentiga inoogu reeba waa hagaag waa 29 bisha June haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay dulmarka aad ku daawateen adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka markazul ihsan online waxay diyaar la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar xeel dheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibadiisa si aad uga faa'iideysato fursadan qaaliga ah fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda qaramada midoobay ayaa waxa ay tallaabooyin dheeraad u qaaday dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee Somaliland ka taagan iyada oo la helayo xogihii ugu dambeeyay arrinkaasi ku saabsan qaramada midoobay ayaa xoog saareysay maalmihii la soo dhaafay arrimaha Somaliland waxaana hadda la rumaysan yahay in tani ay qayb ka tahay isla dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee loo qaaday arrimaha dooda badan abuuray ee la xiriira Somaliland iyo qaabka ay qaramada midoobay uga falcelisay qaramada midoobay ayaa hadda diiradda saareysa sidii loo soo afjari lahaa dhaqdhaqaaqyada guud ee ka taagan deegaanada Somaliland iyadoo oo hadda door weyn laga qaadanayo sidii ay dhacdooyinka qaarkii oo ah kuwa waaweyn waqtiyadii ugu dambeeyana taagnaa la soo afjaro waxaana tani ay u muuqanaysaa in wadadii ugu dambeysay ee arrinkaasi lagu soo afjarayo ay qaramada midoobay hadda u qaadayso xukuumadda Ciro ayaa diiradda saareysa tallaabooyin waaweyn oo loo arki karo inay yihiin kuwo ay ku dardargelinayaan qorshahooda gaarka ah iyo arrimaha dooda badan abuuray iyada oo xaaladdu ay soo taraysa marba marka ka dambeysa waxaana xogaha aynu heleyno ay muujinayaan in diiradda la saarayo tallaabooyin waaweyn oo ay dhinacyadani ku soo afjarayaan qorshayaal xasaasi ah oo mar kale ay si la mid ah sida kuwii horey ugu horeeyay iyo dhacdooyinkii waaweynaa ay ugu soo afjaraan qaramada midoobay ayaa waxa ay hadda Ciro iyo xukuumaddiisuba ku dardargelinayaan in la qaado tallaabooyin waaweyn oo aad u culus iyada oo ay ka dhigan tahay in tani ay qayb ka tahay dhacdooyinka maalmihii ugu dambeeyay taagnaa iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee la xiriira arrimaha dooda badan abuuray ee ay xukuumadda Ciro ku doodayeen xukuumaddu waxa ay diiradda saartay dhowr waxyaabood oo waaweyn sida laga soo xigtay qaar ka mid ah xubnaha ugu dhow ee xukuumadda Ciro waxaana ay markaasi ku dhawaaqeen in si wada jir ah loo qaadayo tallaabooyin waaweyn oo ka dhigan in ay xukuumaddu dardargelinayso qorshayaasha gaarka ah oo ay u arkaan inay yihiin kuwa fursado badan lagu abuurayo iyada oo mowduucyadii ugu waaweynaa ee waqtiyadii la soo dhaafay ay dhinacyadan uga shaqeynayeen tallaabooyinkan xasaasiga ah ay ahaayeen kuwo isoo tarayay tan iyo markii lagu dhawaaqay xukuumadda Ciro in ay heshay aqoonsigii ugu horeeyay oo Israa'iil uga yimid waxaa sii kordhayay dalalka qaarkood oo ka shaqeynayay sidii xukuumadda tallaabooyin dhibaato ku ah ay u qaadaan haddana Ciro iyo sidoo kale Somalilandba waxa ay dunida u gudbiyeen dacwado waaweyn oo ay qayb ka ahayd in laga hortago halista
iyo qatarta Somaliland kusoo wajahan iyada oo qaramada midoobay loo gudbiyay dacwado aad u culus oo ka yimid dhanka iyo sidoo kale Somaliland waxaana digniinaha qaarkood ay ahaayeen kuwa ay Somaliland uga digaysa cadawgeeda gudaha iyo kan banaankaba in ay qaadaan tallaabooyin khatar ku ah jiritaanka Somaliland ama markaasi loo arki karaba inay yihiin halistii ugu dambeysay ee dhinacyada qaarkood ay ka shaqeynayeen waqtiyadii la soo dhaafay. sidoo kale waxaa socda dadaaladii ugu waaweynaa ee xukuumadda Ciro ay qaadayeen iyada oo tani ay qayb ka tahay isla tallaabooyinka iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee lagu difaacayo Somaliland iyada oo waliba ay door weyn ka qaadanayaan dhinacyo dhowr ah oo isku lifaaqaya in markaasi ay awood ku difaacaan Somaliland sidoo kalena ay ka hortagaan qorshayaasha halista ah ee ku soo wajahan. dhinaca kale haddii aynu eegno markana siyaasiyiinta mucaaradka ee Soomaaliya ayaa la siiyay fursadii ugu dambeysay ee kala doorashada wadahadalada dhawaan furmaya dooda la xiriirta iyo sidoo kale guddigii farsamo oo ay soo magacaabeen oo u fadhiya kulamadoodii ugu dambeeyay. mucaaradka ayaa is-aragyadii ugu dambeeyay yeeshay iyaga oo qaadanaya hal mowqif oo ay markan uga hortegayaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo qaadaya tallaabooyin waaweyn oo aad u culus oo waliba loo arko inay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee lagu soo afjarayo mowduucyo aad u cuslaa oo taagnaa waqtiyadii la soo dhaafay. Turkiga oo garwadeyn ka ah gogosha lagu heshiisiinayo ama lagu wada hadalsiinayo mucaaradka iyo dowladda ayaa waxa ay siyaasiyiinta mucaaradka u gudbiyeen dalabyadii ugu dambeeyay oo ay ku tilmaameen in laga doonayo in ay soo buuxiyaan mowqifyadoodana ay la yimaadaan shuruudaha ugu dambeeya oo loo gudbiyo mucaaradka lagana doonayo in ay markaasi raacaan habraacyada ama ay soo buuxiyaan waxay kuwa aad u waaweyn oo ka dhigan in markaasi diiradda la saarayo qorshayaashii ugu dambeeyay ee mowduucyo dhowr jeer laisku hayay waxaana mucaaradku weli ay ka tanaasuli laayihiin qorshahooda nooca doorashada oo ay doonayaan oo qabaa'ilka ama beelaha ay markaasi ku lifaaqeen waxaana 4.5ka ay u arkaan mucaaradku mid ay ku doodayaan oo aysan gorgortan ka gelaynin marka la eego doodihii ugu dambeeyay oo ay dhinacyadan ka shaqeynayeen waxay ahaayeen tallaabooyinku kuwa sii cusleeyay waqtiyadii la soo dhaafay. sidoo kale waxaa xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ahi ay markaasi gudiyadii ay saareen iyo kulamadii ay la yeesheen qaar ka mid ah dadka reer Muqdisho waxa ay markaasi ay ku adkeysteen inaysan marnaba gorgortan ka gelaynin arrimaha dooda oo ay markaasi hadda ku tilmaameen in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tanaasul intaan ka badan aysan u sameyneynin taa oo ka dhigan mid sii adkeynaya culayska iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dhaxeeya hadda mucaaradka iyo dowladda. Filla Soomaaliya ayaa waqtiyadii ugu dambeeyay Turkiga iyo sidoo kale gudiyadii kale ee dhexdhexaadka ah ee Mareykanka, Ingiriiska iyo dowladaha kale ee beesha caalamka ee waqtiyadii la soo dhaafay wadahadalada waday waxa ay markaasi u gudbiyeen dhowr nooc oo ay markaasi doonayaan in wadahadalada loo furo iyada oo dooda ugu weyn oo taagan ahna midda la isku mari laaya ilaa iyo hadda ay tahay qaabka iyo hanaanka loo wajahayo doorashooyinka dalka iyaga oo mucaaradku weli ay ku adkeysanayaan mowqif adag oo ay u arkaan inaysan marnaba ka tanaasuleynin taasi oo dooda cuslayd sii adkeysay sidoo kalena ka dhigtay mowqifka mucaaradka mid aan gorgortan laga gelaynin marxaladaha qaarkii oo ay tilmaameenba inay tahay arrimo ay doodoodu sii adkeynayeen waqtiyadii ugu dambeeyay waxaana hadda ay ka dhigan tahay sidoo kale tallaabadii ugu weyneed oo ay mucaaradka qaadayaan xilli dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay culeysaad badan u wajahayso. markana dhinaca kale haddii aynu eegno xogta ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee uu ku gaaray dalka Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyay.
madaxtooyada Soomaaliya oo qoraal kooban soo saartay ayaa tilmaamtay in booqashadan ay tahay mid shaqo isla markaana ay qaadan doonto muddo 2 cisho ah. ujeedka safarka madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaa daaran xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga istiraatiijiga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, iyada oo mudnaanta la siinayo arrimaha amniga, xasiloonida gobolka iyo horumarinta danaha wadajirka ah ee labada dal ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh ayaa inta uu ku sugan yahay Addis Ababa kulan waxa uu la yeelan doonaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, iyaga oo ka wada hadli doona xoojinta iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika. safarkan ayaa waxaa ka horeeyay booqasho uu maalin ka hor Xasan Sheekh Maxamuud ku tagay dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo uu uga qayb galay munaasabadda qaran ee xuska 49 sano guurada kasoo wareegatay markii dalkaasi xorriyadiisa uu ka qaatay gumeystihii Faransiiska, waqtigii oo ahaa weliba waqti ay markaasi u dabaaldegayeen sanad guuradaasi 27 bishan Juun oo madaxweynuhu uu ka qayb galay. waxaa kale oo uu madaxweynuhu toddobaad ka hor booqday dalka Kenya, isaga oo beer ku taala magaalada Narok kula kulmay dhigiisa dalkaasi William Samoei Ruto oo ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka labada geesoodka ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyaga oo adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii wadista iskaashiga iyo sidoo kale dardargelinta wada shaqeynta labada dowladood. waxaana safar toddobaad gudihiis uu 3 dal isugu maray Xasan Sheekh Maxamuud uu ka sameeyay gudaha dalka iyo dibadiisa, waxaana uu markaasi beesha caalamka oo hore ula kulmay Kenya, Itoobiya iyo Djiboutina toddobaad gudihiis ayuu socdaal ku wada maray. ugu dambeyntiina haddii aynu eegno markan wararka caalamkana, sargaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa baahiyay xog qarsooneyd waqtiyadii ugu dambeeyay oo la xiriirta Mareykanka iyo Iran iyo dooda bariga dhexe dagaalka ka taagan. Mareykanka iyo Iran ayaa la sheegay inay ku heshiiyeen inay joojiyaan weerarada isdaba joogga ah ee ay isweydaarsanayaan, isla markaana ay bilaabaan wadahadallo cusub oo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka ka taagan marinbiyoodka Hormuz. sargaal Mareykan ah ayaa sheegay in labada dhinac ay hadda joojinayaan colaadda, ayna ogolaanayaan in maraakiibtu si xor ah u maraan marinka. dhanka Iran weli ma jiro wax xaqiijin rasmi ah oo arrintan ku saabsan. weeraradii isdhaafsiga ahaa ee mar kale dib u bilowday waxaa sababay is-afgaranwaa ku saabsan nooca marinada loo ogol yahay inay maraan ama isticmaalaan marinbiyoodka muhiimka ah ee Hormuz. saraakiil ka socota Iran iyo Cumaan ayaa yeeshay kulankii ugu horeeyay ee guddi wadajir ah oo loo sameeyay ka doodista arrintan, taas oo halis gelin karta xabad joojinta hadda jirta. shirkan ayay ku yeesheen magaalada Muscat ee caasimadda dalka Cumaan, waxaana uu halkaasi uga qayb galay xubno arrimaha dibadda Iran ka socday iyo mas'uuliyiin kale oo la ogaaday inay dhaqdhaqaaqyadaasi qayb ka ahaayeen. guud ahaan daawadayaal, barnaamij wareedkeenina waa naga intaa.